halkaasi degan. qadka Skype-ka ayuu markaa falanqeyntan inagula wadaagi doonaa Professor Jibriil oo Maxamed. Professor, marka hore soo dhawow. khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland sidee buu ku noqon karaa mid laga gungaaro oo horumar siyaasadeed lagaga gudbo haddii aad noo soo koobto? bismillaah walaal siis aad ayaad mahadsan tahay adiga iyo baxda Universal TV. arrinta Jubbaland runtii waxay maraysaa meel xasaasi ah. Jubbaland waxay u dhaxaysaa in ay gasho xaalad qalalaasa ah iyo in doorasho xalaal ah oo xor ah ay ka dhacdo. labadaas arrimood midkood ayaa ka soo socota. haddii doorasho xalaal iyo xor ah ay ka dhacdo, waxaa dhici doonta in maamulka hadda jooga haddii uu cod helo iyo hadduu waayaba uu magac wanaagsan iyo sumcad wanaagsan runtii ka heli doono arrintaas ayadaa qabashadeeda. in arrintan hadda laga hadlayo faragelinta ah iyo waxa la midka ay meesha ka bixi doonaan. hase yeeshee sida ay wax u socdaan dhankaas uma eka. marka la eego guddiga doorashada oo uu magacaabay madaxweynaha xilligiisu dhammaaday Axmed Madoobe, waxaa guddigaas ka muuqda inay tallaabooyin qaadeen. tallaabooyinkaas oo aan raalli gelin dadka la tartamaya Axmed Madoobe ee murashaxiinta ah, aan raalli gelin beelihii deganaa gobolka, aan raalli gelin qaabkii xataa inuu xalaal noqdo. tusaale ahaan guddiga doorashadu waxay faragelin ku sameeyeen odayaashii dhaqanka. Jubbaland waxay leedahay dhaqan soo jireen ah oo 1000 sano ka badan qaarkii uu dhaqan ahaa. waxay go'aansadeen guddigu inay qaarna ka tiraan liiska, dad aan liiska ku jirin oo dhaqan ahayn oo magacyaalana ay soo qoraan. waxay go'aansadeen inay abuuraan dad cusub oo dhaqan ah. waxay go'aansadeen inay ka tagaan kaalintii dhaqanka oo ay yiraahdaan adinku waxaad leedihiin inaad 3 qof keentaan, annagaa iska leh xulidda iyo doorashada xildhibaanka. arrimahaas runtii arrimo xadgudub ah oo aan u cuntamin guddi doorasho oo aan xalaal ka dhigayn doorashada weeyaan. arrimo keenaya in qalalaas ay gashay Jubbaland weeyaan. arrinta kale oo muhiimka ah oo ay faraha la galeen oo aan ayaga u oolin waxaa ka mid ah doorashada madaxweynaha Jubbaland bay ka hadlayaan ayadoon xildhibaanaba jirin. shuruudaha madaxweynaha waxaa ka mid ah in 10 xildhibaan ay soo saxiixaan warqadiisa. xildhibaanada diyaarsana madaxweynaha xulistiisii baa laga hadlayaa. waxaa weeye guddi marka shaqadiisa yaqaan oo xalaal ah oo dadkii tartamayay iyo dadkii deegaanku ay u dhan yihiin oo ku qanacsan yihiin. haddii aan la helin runtii arrin aad waxay noqonaysaa dhibaato ugu horseeda meesha. faragelinta dowladdana waxaa keenaya dowladdu shisheeye maaha. dowladdu waxay ka talisaa dalka Soomaaliya. markaad eegto gobolladii doorashooyinka ka dhaceen tusaale ahaan Puntland oo doorasho ay ka dhacday, faragelinta doorashada dowladduna ay yarayd. waxaa keenay inay yaraato waxay ahayd dhaqankii soo jireenka ahaa ayaa soo xildhibaanada. mucaaradku waxay ku lahaayeen xubno guddiga doorashada. nidaam xalaal ah oo xor ah oo madaxweynihii fadhiyay ku baxay ayaa meesha ka dhacay. faragelintii dowladduna meesha ka baxday. laakiin haddii taa la waayo oo nidaamku shaqayn waayo, dowladdu inay farageliso ayaa khasab noqonaysa. oo waxa ay ka cabanayaan Jubbaland haddii siday u dhaqmayaan ay sii wadaan runtii way dhagoobayaan. waayahay dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku andacoonaysaa in dowladda dhexe ay faragelin ku hayso oo ay wadato musharaxiin gaar ah iyo taageerooyin kala duwan oo markaas ay siinayso dhinacyo kale oo hadda siyaasiyiinta maamula Jubbaland aan u cuntamaynin. mana jiro shuruuc kala xadidaysa labada dhinac oo markaasi waxa la leeyahay dastuurkii waa qabyo, qodobadii kala xeerinayay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe awoodahoodu ma jiraan. maxaa xilligan oo kale markay xaaladda sidaasi u murugto loo baahan yahay Professor? runtii waa arrimo waxaad ka shanqarisay muhiim ah oo in dastuurkii Soomaaliya wali qabyo yahay. dabcan qaybaha dastuurka ee ku saabsan xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowladaha dowlad goboleedyada dhammaantood waxaa ku qoran, waxaa sharci ka soo saari doona baarlamaanka. waxaa lagu soo qeexi doonaa qabyo tirista dastuurka. arrimahaas dowladdu runtii way ka gaabisay inay si dastuuri ah nidaamka federaalka ee la qaatay u qeexdo. dowladdu way ku dhaliilan tahay, gaabis bayna ka gashay arrintaas ayada ah. shacabka Soomaaliyeedna inay kula xisaabtamaan ayay u baahan yihiin. waxyaabaha keenaya in la isqabqabsado oo had iyo goor maamulada iyo dowladda dhexe ay isku marnaadaan waxaa ka mid ah inaysan wixii kala qeexnayn oo maamulada iyo dowlad goboleedyaduna ay u arkaan
in la qaatay nidaamka loo yaqaan confederationka oo dowlado siman oo isku xuquuq ah oo isku madax ah oo isku awooda la yahay halka dowladda federaalkan ay u haysato inay iyadii ka awood badan tahay dowladihii kale marka taas waa run arrin jirta oo meesha ku jirta weeye laakiin tan Jubbaland marka la eego runtii iyada gudaheeda Jubbaland ahaan dadka ku dhex tartamaya oo murashaxiinta ah xuquuq bay leeyihiin ama ha ahaadeen kuwa dowladda u shaqeeya ama ha ahaadeen kuwa ka tirsan maamul goboleedka ama ha ahaadeen kuwa madax bannaan oo bannaanka ka yimid waxaa la rabaa inay dareemaan haddii laga adkaado ama cod looga adkaado in codkaasi uu xalaal yahay oo xor yahay kulley dowladdu marka haddii ay hawsha faragashanayso ma aha inay xagliso oo murashax gaar u xagliso inay cadaalad darro iyadoo laga cararayo cadaalad darro kala geyso meesha oo ay dhibaato ka abuurto oo ay qof bixiso qofna keento taa waa cadaalad darro laakiin maamulka Jubbaland waxaa laga doonayaa wuxuu soo shaqeeyay muddo 2 teerama hadda 2012 ayaa Axmed Madoobe la doortay 2015 dib baa loo doortay xataa dastuurka Jubbaland waxaa ku taala in madaxweynuhu uu 2 teeram ama 2 xilli shaqeyn karayo labada xilli way dhamaadeen haddana aad moodaa qaab guddiga doorashada ee uu sameeyay madaxweynuhu uu u shaqeeyay inuu yahay mid un ka shaqeynaya sidoo asagu ku soo noqon lahaa oo caburinaya shacabkii iyo dhaqankii iyo nidaamkii iyo siyaasiyiintii kale oo dhan dabcan markii dadka la caburiyo dadku waxay raadsanayaan ciddii u soo gurman karta ciddii wax la qaban karta dowladda federaalkuna dowlad meeshii joogta oo dadkii meesha u dhashay ka tirsan oo stake iyo kaalin ku leh weeyaan waxa meesha ka socda waa tahay marka sidaas oo kaleenta ay xaaladdu u adkaato dabcan waxaa jira golihii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay matalaad ku lahaayeen dowlad goboleedka Jubbaland kaalintii aqalka sare inay maqan tahay ma moodaa professor runtii aqalka sare ilaa iyo intii la soo dhisay 2016 dabayaaqadeedii ilaa iyo hadda weli ma salaysna shaqadiisa oo shaqadiisii oo ma soo jeedo sababtuna waxa weeye dabcan waa aqal cusub oo 2 sano jir ah oo aan ka helaynin ixtiraamkii uu lahaa gobolladii oo shaqadiisii ay noqotay shaqo shakhsiyaad ah qofka senatarka ah ama ka tirsan aqalka sare shakhsi ahaan wuxuu u qabto iyo awoodda iyo galaangalka uu asagu leeyahay markay ka tagto dowlad goboleedyadu ma muujinin inay ku qanacsan yihiin dhexdhexaadinta iyo u kala dabqaadidda ay aqalka sare samaynayaan ay u kala dabqaadayaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha gobollada ujeeddada aqalka sare loo dhisana waxay ahayd in ay matalaan gobolladii in tabashooyinka gobollada ay keenaan in dhibaatooyinka gobollada ka jira ay xalliyaan inay noqdaan codkii federaalka ay ku lahaayeen waxaana soo dhisay gobollada laakiin gobolladii baa haddana xiriirkii baa u jarnay oranaya isla aqalkii sare isla aqalkii hoose ayaga lagu soo xulay waa arrimaha u baahan in dastuuriyan runtii loo turxaan bixiyo dowladda federaalkuna ay u baahan tahay inay u soo jeesato xilli howleedkeeda inta ka dhiman inay runtii ummaddan gaarsiiso in dastuurkan la qabyo tiro in nidaamkan qaabku u wada shaqayn lahaa oo qaab habsami leh ah in la dhiso oo la diyaariyo in hay-adihii ka shaqaysiin lahaa hawshan la xoojiyo oo la hirgeliyo oo la dhiso arrintaas oo dhan arrin u baahan weeyaan dowladda federaalka ah ee mas'uuliyadda ay leedahay aqalka sare haddaan dowladda federaalkii riixin oo aanay awood iyo dhaqaale iyo shaqaale iyo wax alla wuxuu u baahan yahay oo tasiilaada siinin ma noqonayo hay-ad shaqaysa haddii aanay gobolladu taageero siina ma noqonayo mid ilka leh marka waxaa loo baahan yahay labadii dhinacba inay runtii hay-adihii dhisnaa intii jirtay inay taageeraan inay ayaga ay isku hadlayn siiyaan si ay shaqadooda u qabsadaan iyo waajibaadkooda dastuuriga ah waayahay doorashooyinka Jubbaland si kastaba waxaa la sheegayaa inay dhici doonaan dowladda dhexena go'aamo iyo warqado qoraal ah oo war-saxaafadeedyo ayaa ka soo baxay halka Jubbalandna ay aad ugu soo horjeedo arrimahaasi in dowladda Soomaaliya ay ka hadasho xageebuu xalka ku jira ugu dambeynse doorasho noocee ah oo dadku ay ku qanci karaan ayaa ka dhici karta Jubbaland runtii sidaan bilowgiiba ku sheegay Jubbaland xalkeedu wuxuu ku jiraa in doorasho xalaal ah la qabto fursadaasna waxaa haysta maamulka hadda meesha ka jira oo runtii lagu xasuusan doono siduu u maareeyo arrintan iyada ah haddii doorasho xalaal oo daah furan oo si xor ah loogu tartamo uu qabto maamulkani doorasho xalaal markaan leeyahay waxay ka dhigan tahay doorasho
la isticmaalayo ama la siinayo awooddii ay lahaayeen odayaashii dhaqanka soo jireenka ahaa, doorasho beelihii ay ku qanacsan yihiin, doorasho murashaxiintii aan hadda xilka hayn ay ku qanacsan yihiin oo ay qayb ka yihiin xulista guddiga shaqada qabanayo, qaabka loo qabanayo ay miiska fadhiyaan oo shaqada wax ku leeyihiin. haddii doorasho noocaasa la qabto, maamulka hadda jooga wixii uu soo qabtayna waa looga mahad celin doonaa, taariikhdan wuxuu ku geli doonaa inuu doorasho xalaala qabtay, shaqadaba ha ku waaya sidii madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray oo doorashooyinka qabtay kuna waayay, sidii madaxweyne u dambeeyay Puntland oo doorashada inta qabtay ku waayay kii ka horreeyay, sidaas oo kale taariikhda ku geli doonaa. haddii laakiin doorasho aan xalaal ahayn la isku dayo iyo boob in meesha lagu qaato, waxaa dhici doonta faragelin Soomaali gudaheed maahan xataa banaanka ka timaada. waxaa dhici doonta in wixii legitimacy-gii iyo xalaalnimadii qofkii madaxnimada sheegtay la isku qabsado. waxaa dhici doonta sidii hadda ka hor ka dhacdayba in madaxweyneyaal kale lagu dhawaaqo, guddiyo kale lagu dhawaaqo, siday ku hanjabeen qaar ka mida murashaxiintu. marka fawdo ayay arrintaasina runtii horseed u noqon kartaa. dadkii kasoo shaqeeyay Jubbaland oo mas-uuliyiinta ahaa oo maamulkan intaa soo daadihinayena waxay ku noqonaysaa arrin dhibaato ah oo wixii ayagu ay dhiseen inay burburiyaan oo burburkooda ay iyagu mas-uul ka noqdaan ayay arrintaasi keenaysaa. waa tahay Professor Jibriil, dhanka kale waxaynu eegi doonaa xaaladda nabadgelyada gobolka Banaadir, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. toddobaadkii tagay dabayaaqadiisii galab Arbaca oo markaasi 4 galabnimo ahayd, shir waxaa jiray lagaga hadlayay tubaha arrimaha ee maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan dhanka amniga. waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Giriisow. qarax halkaa ka dhacay oo weli nooca uu yahay iyo baaris rasmi ah oo aan soo bixin oo cadaynaysa ayaa halkaa ka dhacay. ilaa 6 qof oo dowladda hoose ee gobolka Banaadir muhiim u ahaa oo xilal kala duwan hayana waa ay ku dhinteen. tiro intaa la mid ahna waa ay ku dhaawacmeen oo dhaawacyadooda gudoomiyuhu gobolka uu ka mid yahay oo loo qaaday wadanka Qatar magaaladiisa Dooxa oo lagu daaweynayo. saameynta dhanka amni darrada ee maamulka gobolka Banaadir sidee baa lagaga gudbi karaa, ama saameyn ma ku yeelan kartaa shaqada gobolka Banaadir dhacdada xanuunka leh ee xarunta dowladda hoose ee Xamar ka dhacday? runtii marka hore waxaan u tacsiyeenayaa dadkii ku geeriyooday arrintaas, shilkaas iyo argagaxaas lagu sameeyey gobolka Banaadir iyo maamulkiisa madaxdiisa. dad aan waxba galabsan oo dalkooda u shaqaynayay oo dhalinyaro u badnaa oo ay ku jireen inama aan weli guursan ayaa runtii la halligay oo la laqmiyey. arrintaas waa arrin in aad looga naxo u baahan, in laga taxadaro inaanay dib dambe u dhicina u baahan. waxaan kaloo ilaahay uga baryayaa dadkii ku dhaawacmay oo ka mid yahay gudoomiye Yariisow in ilaahay u boogadhayo, caafimaad iyo amniga gobolka Banaadir gaar ahaan iyo guud ahaan amniga Soomaaliya iyo ka adkaanshaha al-shabaab waxay u baahan tahay in loo howlgalo, in qorshe laga leeyahay. dabcan sida hadda muuqata waxay noqotay arrintan dagaalanka lagula jiro al-shabaab arrin mashruuc ah oo ciidanka AMISOM muddo 12 sano ah inay dalka joogaan, 20 kun oo askari oo AMISOM inay joogaan, ciidamo Soomaaliyeed oo 30 kun inay joogaan, intaasoo kale oo maamul goboleedyada jooga inay joogaan. haddana aan wax dagaala lagu qaadayn al-shabaab. sida muuqata 2013 ayaa ugu dambeysay weerar lagu qaado al-shabaab oo dhul looga qabsado. gobollo Soomaaliyeed ayay weli gacanta ku hayaan. waa ururka argagixisada ah ee caalamka dhulka ugu ballaaran gacanta ku haya. dakhli aad u fara badan ayay arursadaan, nabad ayay haystaan. marka haddii aan la welwelinin ayaga oo aan la eriyoonin oo aan cabsi la gelinin, waxay ka shaqaynayaan inay ummadda dhibaateeyaan had iyo goor, inay wax soo abaabulaan. berigaas markii la weeraray oo laga qabtay magaalooyinka Marka iyo Kismaayo, Baydhabo, magaalooyinka waaweyn oo dhan laga qabanayay, way isku dhaceen shabaabka dhexdooda. ayagii baa iskhilaafay, way ishaaraameen, way is eedeeyeen, way kala biiqbiiqeen. waa berigaa marka ay ka kala baxeen Mukhtaar Roobow iyo rag la mid ah Xasan Daahir iyo waxa keenay marka waxa weeyaan markii la jabo waa la is eedeynayaa, laakiin markii guul la gaaro guushu waxa la yiraahdaa way aabayaal badan tahay, qof walba sheeganaya, waa la isku duubmaya. shabaab hadda way isku duuban yihiin sababtoo ah ummadii Soomaaliyeed dhibaatadeedii bay ka libkaaneen, dhibaato aad u weyn bay ummadda u geysteen. waxaa loo baahan yahay dowladdu 2 sano la soo dhaafay waa duulaynaa, waa la diriraynaa bay ku haysaa, wax dhaqdhaqaaq oo badan oo jirana ma laha. arrintan inay mashruuc noqoto waa looma baahna. waa ayaan daro 2019 in weli madaxdeennii xafiisyadoodii ay ciidamo shisheeye waardiyanayaan. waa nasiib daro in magaalada Muqdisho
xarunteedii iyo xudunteedii runtii weerar lagu soo qaado waxaa loo baahan